maalmaha alle mid walba oo ka mid ah waxa ay leedahay maamuus gooni ah 12 bilood ee sanadkana waxa dhex ahaatay maalmo ku weyn alla weyne subxaanahu wa tacaala oo uu si qaas ah u karaameeyay qaarkood bilaha sanadka ama maalmo qaas ah ayuu alla miisaankooda darteed ku dhaartay inaguna waqti xaadirkan ma awoodno inaan muuqaalkan ugu wada hadalno dhammaan munaasabadaha sanadka iyo guud ahaan maalmaha barakada leh balse waxaan idin xasuusin doonaa qiimaha ay leedahay maalinta 9aad ee bisha Dulxaj oo ah maalin ku weyn muslimiinta maxaa dhacaya haddii berri oo isniin aad u soonto alla dartiis adigoo rajeynaya in alla dembigaaga uu dhaafo weliba sanadkii hore iyo mid ka soo socdaba si aan muuqaalkan kooban kula wadaagno ama xitaa aan ku xasuusino qiimaha soonka maalinta berri ay u leedahay muslimiinta like sar muuqaalkan una share gari asxaabtaada si muuqaalkan u gaaro kumanaan qof oo ku baraarugi kara inay berri u soomaan alla dartiis ajirna ay u xisaabsadaan sidoo kalena haddii aadan hore inoola socon ku soo birbogeyna oo follow iyo like basaar si aysan ku dhaafin warbixinada kala duwan ee aan halkan ku soo bandhigno si maalinla ah aad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga waxaa hubaal ah in bini'aadamku dhammaantood ay yihiin kuwa gafaya dembina kama marna qof walba oo noola ah haatan sidaas oo ay tahay waxaan ku sii kala duwannahay sida aynu u kala cibaado badan nahay alla dembi dhaafkiisana qof walba ayaa u baahan mawduuceena waa baraarujinta maalinta berri ah oo ku beegan maalinka 9aad ee bisha Dulxaj maalin soonkeedu uu muhiim yahay walaashay ama walaalkayga muslimka ahow maalinka Carafo waa maalin Ilaahay uu dhaafo gafafka uuna ajiibo ducada adoomadiisa wuxuu Ilaahay u amaanaa malaa'igtiisa dadka taaga banka Carafo kuwaasi uu u soo xajiyo gurigiisa barakaysan maalinta berrita ah waxay taariikh ahaan ku aastaysan tahay maalintii uu alla subxaanahu wa tacaala dhammaystiray diintiisa uuna u kamilay adoomadiisa nimcooyinka oo dhan waa maalinkii soo degatay ayadda quraanka ah ee ah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا sidoo kale waa maalin uu Ilaahay ku dhaartay uuna yiri washaahidin wa mashhuud nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku fasiray shaahidku inuu yahay maalinka jimcaha mashhuudkuna laga wado maalinka Carafo ibn Abbas iyo Ikramah iyo mufassiriin kale waxay ku fasireen washafci wal wadri maalinka Ciidul Adha iyo maalinka Carafo maalinka Carafo oo maamuuskeeda berri ay ku beegan tahay waxaa loogu magac daray meesha ay xujaydu taagan yihiin maalinkaasi oo ah banka Carafa markaynu ka waranno dadka xajinaya waxa ay sameynayaan maalinta 8aad ee Dulxaj ay xujaydu waxa ay tagaan teendooyinka Mina una qasdaan si ay u gutaan rugniga ugu weyn ee xajkooda waxay yimaadaan duhurka ka hor Carafa halkaasi oo ay ku jamciyaan salaadaha duhur iyo casir kadibna xujaydu waxay u istaagaan sidii ay u gudan lahaayeen cibaadada dhuuxeeda oo ah ducada iyo baryada Allah subxaanahu wa tacaala si uu ugu dambi dhaafo dhammaan dadka kale ee ka soo haray muslimiinta ah ee aan xajka gudanaynin maalinka berri ah waxaa sunno ku ah inay soomaan maalinka Carafo iyagoo rajeynaya dambi dhaaf rabbigooda iyo naxariistiisaba waxaa kaloo ka sugnaatay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri soonka maalinta Carafo wuxuu tirtiraa sanadkii la soo dhaafay iyo kan soo socda dambiyadooda waxaana wariyay Muslim oo isaguna xigtay Aisha radhiyallahu anha oo nabiga ka warisay iyadoo Aisha tiri rasuulku waxa uu yiri ma jiro maalin uu Ilaahay uga xoreyn badan yahay naarta adoomadiisa maalinka Carafo Ilaahay wuu soo dhawaadaa wuxuuna malaa'igtiisa u amaanaa adoomadiisa taagan xajka wuxuu sidoo kale xadiis saxiix ku yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ducada waxa ugu fiican ducada maalinka Carafo haddaba haddii ay sidaas tahay soomahayna dhammaanteen isku baraarujinno oo aan walaalaheena aan xasuusan farno in soonka maalinta berri ah ay tahay soon loo baahan yahay si Ilaahay dambiyadeenna u dhaafo tan xigtana waxaa muhiim ah in soonka berri aad soonto iyadoo calooshaada ay ka maran tahay uqdad iyo xaasidnimo sidoo kalena cafiyo qof walba dar allana isaga cafiyo qof walba oo qaladka galay alla waxaan ka rajeynayaa dhammaanteen in dambiyadeenna kuwii hore iyo kuwa soo socdaba uu dhaafo allana uu jannada inoogu bishaareeyay dhammaanteen iyo muslimiintii alla uu hore inooga jeclaaday ee aan ifka joogin waqti xaadirkan sidaas la mid ah alla waxaan ka baryaynaa in sanadkan kiisi xiga aynu ku gaarno bashbashi barwaaqo ilaa dhamaadka hadii aad nala soo gaartay muuqaalkan like saar si dad badan muuqaalku u gaaro una share garay asxaabtaada kale ee Facebook kuna soo birbogeyna haddii aadan hore inoola joogin
biijka like saar oo follow saar maadaama aan ku soconno waddadii aan ku gaari lahayn 1 milyan oo followers ah